qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaanada iyo wasiirada beeshaasi ku matala dowladda Federaalka Soomaaliya ka raali galiyay hadal ka soo yeeray mid ka mid ah shakhsiyaadka beeshaasi u dhashay oo dhawaan warbaahinta ka sheegay inay ka soo horjeedaan dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Odayaasha iyo salaadiinta shirka jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay inay si buuxda u taageersan yihiin dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaasna aysan jirin wax dhaliil oo dowladda ay u qabaan. shirkan jiraayid oo caaw meeshan aan ku qabanaynaa wuxuu daba joogaa sidii odayaashii hore saaxiibada ay sheegeen war meediyaha ayaantan ku soo laalaabanayay oo nin odayihii oo Saleebaan ah oo leeyahay Bashiir Maxamed Bashiir Berig la yiraahdo oo meediyaha ayaantan ku wadwaday iyo warkaasi daaran yahay. waxaan u sheegaynaa inta ma maqlayda inta maqalkeeni muuqeena taqaan inta ma garanaysaa uu ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyaddu xildhibaanada beesha reer Xaaji Saleebaan wasiirada bahda inta kale maaragtay kamida dadka arrimaha Soomaaliya iyo waxa dhan u jeeda annagu odayaal nahay odayaal Saleebaan nahay odayaal Habargidaan nahay odayaal Hawiyaan nahay odayaal Soomaaliyeed madaxweyne ka raali ah warkaas warkii lagu aflagaadeeyay oo meediyaha la geeyay oo leeyahay waa war Saleebaan warkaasi war Saleebaan ma aha. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirada beesha reer Xaaji Saleebaan iyo xildhibaanada labada gole ee ugu matala ee beesha reer Xaaji Saleebaan waxaan meeshaan ka raali gelinaynaa oo raali gelin buuxda ka siinaynaa warkii maraha bulshada iyo TV-da qaybo ka mid ah loo marsiiyay oo lagu maaragtaa wax loogu dhibay oo sida kala duwan oo aanan annagu ku faraxsanayn oo aanan raaliga ka ahayn. waxaan mar labaad cadaynaynaa inaan meeshaan si buuxda annagoo ka wakiila beesha reer Xaaji Saleebaan inaan raali gelin ka siino madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo xildhibaanada labada aqal lagu matala ee afarta ah iyo labada wasiir. waxaan raali gelin ka baxaynaa warkii aan loo tashan oo meediyaha mar iyo laba iyo saddex ahayn oo yimid raali gelin ka baxaynaa anoo ku hadlaya afka oo wakiil ka ah odayaasha qaybaha kala duwan ee beesha reer Xaaji Saleebaan oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka ee hadda halkan aan fadhin ganacsatada shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka ee la aflagaadeeyay ka shaqeynaya qaybahooda kala duwan. waxaan raali gelinta marka koowaad aan raali gelinayna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay madaxweyne wixii baraha bulshada oo ku maqasho warka Saleebaan ragii ku hadlay warkaas war dowladda federaalka ay Saleebaan ku heshiiyeen maahan. Saleebaan mucaarad waa yaqaanaan mucaarad ragii ugu horeeyay oo soo maro waaye laakiin Saleebaan sanadan iyo sanadii u dhow wax mucaarad inuu ku noqdo dowladda iyo mid ka horeeyay midna mucaarad kuma ahayn. dowladana waa dowlad uguba dalkay dagaal ku jirtaa. waxaan kaloo raali gelin rabaa inaan halkaan iyagana baaq u diro oo ka raali geliyo xildhibaanada beesha reer Xaaji matala oo warkii aan baraha bulshada ay ku sameeyeen ninka odayaha iyo raggii la socday inaan raali gelin iyagana siino xildhibaanada iyo wasiirada. waxaan leenahay raali ahaada dalka iyo dadka idinka matala dowladda federaalka haddii wax ku maqan yihiinna adinkaa la rabaa inaad ka keentiin. waxaan leenahay idinkana warkaas uu canaab ceel waaye. Saleebaanna meediya wax iskuma marsiin jirin. Saleebaan tala ku nool wahay annagoo ah dhaqanka beesha reer Xaaji Saleebaan waxaan ugu hadlaynaa waayahan ayaantan shir jaraa'id uu waday nin odoo la yidhaha Bashiir Eeg oo dowladda uu ku cambaaraynayo. shirkaas jaraa'id wax wada tashiya iyo wax Saleebaan uu u dhiibtamaan wax kaligiisu ku ah afka u ku hadlana mid asaga kaligiisu waa mid Saleebaan inta meel isku gutay hadday dhaqan leeyihiin iyo haddii odayaal leeyihiin iyo haddii ganacsato leeyihiin haddii si liiri ku hadal maaha. waxaan leenahay madaxweyne ka raali ahow Saleebaan dowladdan asaga wax ka dhistay ummadda Soomaaliyeed ka mid yahay dowladda dagaal ku jirtaa siyaasad iyo dagaal adduun waa wada
kulli salabaan ka mid yihiin dagaalkii koway ka yihiin siyaasadiina waa kaas shacabka salabaanna dowladday raacsan yihiin oo dowladdaas hadda cidka mucaarad ku ma ogin laakiin qof shaksi dan waa yeelan karaa bashirinka dan leeyahay isagu dhagaxan uu tuurayo waxaan is leeyahay dowlad waa la mucaaradaah mucaarad aanan aqoon shisheeye gacmo shisheeyaa bashiir ku jira islan bashiir ma dhihi karno nin salabaan wax ka maqan